naagweyna inta saas u fariisato inta lagu gelina markaas inta geedkan oo kale dab lagu siinaa intana gambar lagu saara adigoo leh laga siinaa dhiig bu labo inay ka baxdo inay dhimato labadaas nasiib haday baxdo nasiib had 120 aad dhimanayso laakiin sida lagu xirxiray intiir lagu geynaado moodo idinka sheegi karaa magacaygu waa Isniin Axmed Muuse waxaan ahay maamulaha aqoon isweydaarsiga iyo darasaadka OTB socdo resource center Boosaaso ah waxa weeye professionkaygu waxa weeye caafimaadka gaar ahaan umuliso waxaan ku xaal dheerahay hooyada iyo caruurta xanaanayntooda taas weeye guud ahaan waxaan ka hawlgalaa ama shaqada iyada gaartaa gaar ahaaneed gudniinka gobolka bari waxaanu ilaa hadda si toos ah u gaaray muxuu ahaay qaxootiyaasha tuulooyinka ay ka mid yihiin laag kalabayr carmo raka raaxo muxuu ahaay sheerbi iyo tuulooyin kale oo halka ku soo koobi karin soconnaa tuulo ka mida gobolka bari oo la dhaho sheerbi waxaana jecelnahay hawlaha ayaantaanba ku hawlanayn oo gudniinka gabdhaha ah inaanu kala soo xaajino dadkaas afkaartooda kala duwan aan soo aragno haddii Allah awood leh ogolaado si aanu hawl galka iyaga نور أنا وأنا واكين السوشيء هدي أنا واكين السوشيء يا أنا نور يوسف فرح على يراهدا واجي هو توحنا عندي طولة أو تاريخ الطهي أفرتن يلا وصلنا تاجن أي سنة هاي وذكي قدومية كعنجري معناها دولنا أدير أنت أفر سنة هاي وكوريكي وسدجي مقعي نكاد مقاشين بالله مقعاوي إن شودا والسلام عليكم marka maanta waxay noo tahay farxad iyo reereyn inaan tuulada sheerbi la joogno cuqaashi culimadiinkii odayaashii madaxdii haweenkii ardaydii dhalinyaradii intuba inay joogaan aad iyo aad bay taas farxad noo gelinaysaa waxaan kaloo marka idinka codsanayaa salaanta iyo farxad kadib inaynu furanno mawduuca aan maanta meesha u nimi oo ah muxuu ahaa gudniinka gabdhaha ma furan karaa walaalayaal waa ay fasaxanta sooma haddaba waxa weeye waynu ka wada hadlaynaa qof gaara oo isagu 10 gaara ama wax gaara wata ma jirto nin walba afkaartiisa ula muuqato iyo siday u tahay ayaan muxuu ahaayay insha Allah nin walba ka filaynaa inaynu ka wada qayb qaadano أنا ولا أمسنها قبلها قدنا ذكورة سيدي ولا عادي أنا برناي ولا ما أنا بدلين سيدي ما أنا إسعنا نقام كلام ولا ما هنسنها ما تشرو لأننا فكرت ده تكقبت أنا نقول بدل يسان بل هذا اللي كده جيسان أنا قبل كهذا واحد قبلها يجا أنا
وجودينا قبلنا واحد قبلنا علي نبى علي هو يا وارشي قبلنا واحد لقى قطع بقول هذا لقى قطع قبلنا نك قرصنا يا بقول هذا الضحية مصحف طبيعي قبلنا كعدي فرنت هاي لما قرصنا واحد قبلنا واحد والسكلية وبرسول بس كذا أكتر لما قرصنا marka hadaad garateen oo adigu gudoomiye intaas oo sano gudoomiye ka ahaa muxuu ahaa tuulada Sheerbi haddana odayaasha ka taliya aad ka mid tahay bal arintaas hadda maxay kula muuqataa adiga gabdhaha lagu sameeyay mid waa ku horeysiyay midna waa ku dambeysiyay dhibaato waa ku dambeysiyay midna waa ku horeysiyay oo waxaan ku yiri gabadha abuusa oo halka shax ku jira oo shaxaya baa habartu qolka la gashay gudaa warna ma hayo odagii asli waxa markii hore ku iri hadeerna waan ku iri hooyooyinka asliya laakiin bal ma hadda muxuu ahaayay waxaan ka hadlayaa kaliya waan weydiinayaa isla raacaan rabbi anuu dad islaam aan nahay dadka islaam adduunyada hadda wixii islaamka ku dambeeyay inaan ku kaxlo maaha hase yeeshee raggu meesha gabdhaha saadheen raggaa dembiga leh inagu hadda inagiba waxba isbeenbeenin mayno waxaynu caado u leenahay gabadha haddaynan gudnayn oo tollayn oo jiriiq laga dhigin in dhexda la diloosho guriga haddii loo keeno raggay ka timaadaan gabadhu haddii ayan furan tahay inuu dibaddaba uga baxo bannaanka aado uusan guriga ku soo noqon oo gabadhii halkaa ku xojeeyo gabadhii sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waynu garanaynaa waa dhiigayn alla gooya maa la totolina maa taas marka naag buurya qabaa naloo keenay in la dhaho waa suurtagal odag raggu waxay dhahaan geel baan ku qaada laba reer baan ku xidida gabadhu waa inay gabadheedu tolan tahay go-aanka ragga iskale dembigan ragga iskale annagu hooyada masaakiinana idinkaana xakuma dadkuna dad islaam adduunya waxaa fiican in runta laysu sheego ragyahow waxay tahay waxaad runta yaan laga leexan indha idinkaa waddanka u ah wixii xumaana oo annagaana jawel baan ka nahay wixii sharcadda islaamka ka ogoshahay haddaydan nagu hagin oo idinku ka leexleexataan dee idinkaa laydin haysta qiyaamo raggiina indhaha leh haddee kale annagu gabdhaha taranka xubnaha baabi'inaya oo dhibaatada u geysanaya oo idinka dhib idiin geysanaya oo annaga dhib noo geysanaya waxaan rabnaa oo dhigbaxa nagu riday oo dhaqanxumada nagu riday oo dhibaatooyinka nagu riday ilanaga caadatan cilmi baan moodi jirnay naga jahal saara oo gabdhaha furinina oo gabdhaha daaya oo fidiya diinta oo meel walba ka sheega war wax kaleeto ma ahee waxaa la yidhi haddii gudda timaado gudal qarsiyo ma jiraane gabdhaha caadadii horeetaa la yidhi ku gudaa mase caadada gabdhuhu sheegayaan baa layidhi ku gudaa ragga ka fushay raggayna ka maya war inta ka dhaxan baahinay arinta waxayna ku deysaan arinta waxayna ku deysaan shay fardu ila Allah wa rasuulihi waxayna ku soo dhaqanay been raacayna wax cusub bilaabna maya taas ay kada wajahada arinta inoo daayay anu waxaan qabaa sida xaajigu yiri tahay in loo baahan yahay xagga diinta in loola noqdaa iyo culimada diinka dalka xukuma in loo bandhigaa oo arrintu ka soo fushaa oo la yidhaahdaa saasaa xalaala xoogaa baa la gooyey in yaroo dhiigaa laga keenay waa xalaal caadadii hore ha lagu wado waa xalaalayeen culimadii waa in dib loogu noqdaa culimadu yani kitaabkii waa in dib loogu noqdaa waxaan ilaahay inoo soo saaray horta maba jiraanba wax walba ilaahay waa inoo soo saaray kitaabkaas inoo ku soo caddeeyey dib baa arrinta laysku qabto dib baa kitaabka loogu noqdaa marka waxaan idin leeyahay arrintaas waxay u baahan tahay gobol baynu nahay gobolkeennu culaamudiinka inaynu ula noqonnaa dib ula noqonnaa oo ka soo fulisaan idinku oo meel walba waraara dhigtaan miyigii baanu ku faafinaynaa saasaa diinteenna ogoshahay saa gabdhiha loo galo
waayahay aad baa u mahadsan tahay maxamuudow waxa weeye adeer nuur iga raalli ahaw haddaba waxaynu isla garannay inay hawshaasu tahay mid sharci u baahan oo diini ah waxaynuna u baahannahay inaynu wax badan ka wada hadalno culimmada in wax badan arrintan muxuu ahaaye laga sameeyo wada hadal si loo gungaaro waa inoo xirta soo maahad shirkiina waa inoo xiran yahay kulamadeena kula khayr allah ka dhigo tan dambena mid khayr allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullah faataxa sababaha waaweyn ee gabdhaha loo gudo dadka qoloba aragti bay ku dhifataa laakiin anigu markaan darsay sahano badanna aan sameeyey sababaha ugu waaweyn horta marka hore loo gudaa waxay noqdeen marka ugu horeysa in gabadh reerka sharaftooda lagu dhowro waa number 1 bay ka dhigtaan waxay ka dhigtaan waxay aaminsan yihiin inay diinta tahay oo ay dad diinta qabanayo balo ka dhacdayo waxay diintu farti faran bay horta u haystaan oo cajiib bay horta ku haystaan kuwa waxay isu haystaan oo gabadhu haddayanba gudnayn oo haddee la yarayn aw maka la yarayn xoolo badan laga heli maayo dhaqaalo badan laga heli maayo way 100 geele iyo 50 geele iyo bay muxuu ahay ku gorgortamayaan waxay kale ku gorgortamayaan oo ugu sii kaleeto iyaguna kuwa waaweyn ka mid ah gabadhii maba la guursanayo waxay dhahaan waxay ugu shiyeeraan guumays waa ku guumaysoobeysa bal waxay ka helaan iska daay yaa guursanay lagu leeyahay gabadha buuri qabo oo aan muxuu ahay gudnayn dad kaleeto waxay muxuu ahaay u aaneeyaan arrintaas oo ay dhahaan haweenka Soomaaliyeed ama jaahilnimo ha u geysato ama ulakac ha u geysato ama ayada in hooyanimadeedii la jeclaadoba ha u geysatay waxay dhahaan aniguba dhibta waa soo maray ka aarsasho ahaan sida aniga la iga dhigay waa inaan ka dhigaa gabadhayda waxa weeye waxaasoo dhan ayay muxuu ahaay sababaha loo gudaa ay tahay tan gudaysa qudheedu xagga dhaqaalaha way ka saamaysaa waxay rabtaa wax ka soo gala iyada way ku nooshaa waaba muxuu ahaayey magacaba meeshay ku lahayd lacagna ka helaysa waa marka xagga dhaqaalaha xagga qoyskana way qusaysaa xagga guddadana way ay qusaysaa marka arrimahaas oo dhan iyo xagga bulsho ahaan way taabtaan waxay dhahaan bulshada waxay ka xishoonayaan reer gabadhooda ma gudna oo maxaa tirahdeen waa buri qaba agtayna ma soo madho taas yaa ayadana xishood bulshada xaggeeda kaga imaanayso cadaadis ka saaran qudheeda sababaha loo gudo waxa weeye nambarada ugu waaweyn baa lagu tiriyaa soo dhasho ka bacdiyaa haddana la rabaa inuu abuurka qodka iyo wax saqda aad ka celiso oo aad falahalaha aad ka ilaaliso aad falatid oo aad sagada markay soo ay xogaa roonad dugaagta ka celiso waa lidin wadaa geedkaa la tagaa 20 naagood camal iyo gabdhihii meeshay tagaayeen markay waa lagu xirxiraa adiga nafaad leedahay waa lagu xirxiraa naagtaan lugtaan lagu xiraa naagtaan lugtaadan iyo gacantaan saasaa loo xiraa saas bis markii aad lagu dhaawacsan lagu qaada waa lagu geynaa xalay markii lagu sheegay subaxan salaade lamada saac adiga salaade waraxda markay meelahan timaado midi lagu qaadanaa sakiin ma aha maqasna ma aha midi wambarta lagu dhigaa sidii maqaarkaan oo kale dhiigga intuu ka baxa saasaa lagu hoodinaa waa lagu qaadaa waa lagu sheegaa arigiyaaba lagaa reeba xoolo ma raacay sida adi laakiin sida lagu jarjara iyo waxaasay laguma sheegay maya ma lagu dhahaayo sidaana lagu gogoynaa haddaa tiraa waa cararaysaa ma lagu dhahaayo waa fiican yihiin berriyaa lagu gudaha dadku waxaa moodeen ka badaysaa intaa ku ballanay waay marka meeshana ma deeqdo aad u dhagaysta way waxa inaga waxa way dadka Soomaaliyeed badankood waxa laga yaabo halka qoraalku yaal inta badan ay aqriyeen laakiin raadi ay dhagaysanayaan
maanta waxaad maqlaysaa markaa hadda gaariga raacdo baska sii la sii socotay hadda raadiyo wuxuu sheegay ma maqashaan kulli waa wada maqalay ku leeyihiin laki cabdi cali daawadayaal iyo dhagaystayaalba markana waxaanu gudagalaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu caawa kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo saamaynta gudniinka waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo FGM-ka amase gudniinka fircooniga ah gudniinka laba siyaabood baa hadda Soomaalidu waxaan malaynayaa inuu naqaanaa kulli baan ku aan garanaya gudniinka ay Soomaalidu samaysay ee ah noocan maaragtay kii hore ee ama fircooniga ha ahaado ama qodbida ha la yiraahdo wax la doono ha la yiraahdo iyo kan sunnaha ah ee inta badan laga soo guuriyay dalalka bariga dhexe ee Carabta gudniinka ay hodan leedahay waa ku xadgudub loo geysanayo dumarka xawo ay ku raacayso sida badan dumarku ay intaas qabaan gudniinkaasi ma kan sunnaha baa hodan mise waa sunnaha loo yaqaano noocyada kale idinka laga badiya mise waxaanu ka hadlaynaa waa gudniinka oo dhan nooc doonaba ha noqdo marka gudniin la yidhaaho annaga bahda caafimaadka meel buu naga wadaagay sababtoo ah haddii fartaada lagu mudo irbad dareenka ilaa maskaxda ku dareenta xubin kasta oo dareenkeeda wax la yeelaana kuma noqoto sidii ilaahay waa bur waayahay su-aashaadaas waxaan jeclahay in aan ku soo noqon doono qadar daqiiqada kadib xawo gudniinka aad ka hadlaynaa hodan waxay tiri dhammaanba caafimaad ahaan gudniinku meel buu naga wada taagan yahay tusaalaheedana waad maqlaysaa irbad haddii lagugu mudo ilaa maskaxda ilaa maaragtay dhammaan dareenkaaga waad wada xanuunsanaysaa fikradda imaad qabtaa adigu xawo waa qabaa iyadaan la qabaa taasaan la qabaa sababtoo ah waxa weeye gudniinka markaynu nidhay waa fircooni asagu horta ka hadalba ma laha oo dhibkiisa iyo waxyeeladiisu waa mid aan laba koobi karin sunnigii markii la yirina waxa weeye tolliinkii unbaa laga daayay laakiin intii kaleba waa la samaynayaa marka waxa weeye wixiiba hadday isku mid noqdeen dee kii la tolay iyo kii aan la tolin xubnihii waa la wada jaray waana la wada tirtay marka dhibaatadii meesheedii bay taalo wax isbedela ma waana isku mid sidaasaan ku raacsan qofka dumarka ah ee ku shaqaysanaysa noocaas ee iyadoo dadka guda dhibaatada intaa leen qofkii kale u soo jiiday waxaa tahay urur waxaad ku jirtaa ururada haweenka yani khaladka ama dembiga ay gashay sidee baad usoo koobi lahayd ma suurtagalku ma ku tahay inaad erey ahaan noogu sheegto bal dhibaatada uu qofkaasi geystay waxa weeye horta dhibaatadan waxaa sabab u ah yani qofkani quutalyoonkeedii baa meesha galay haddii mar quutalyoonkeedii meesha galayna iyadu dhibba uma aragtay waxay u aragtaa inuu yahay shaqo caadiya oo ay shaqadeedii tahay bay u aragtaa marka waxaan anigu odhan lahaa si dhibaatadani meesha uga baxdo ama u yaraato dee waxa loo baahan yahay iyada in shaqo loo abuuro oo laga jiheeyo arrinta tan laga jeediyo meel kaleeto oo ay shaqo ka hesho loo sameeyo taasna waxay ku xiran tahay dee dadaal weyn oo loo galo oo waqti qaata oo dhaqaale qaata oo hawl weyn oo ballaaran weeye waayo mujtamac dhan baa ku shaqaysta waxa kale laakiin inay dambi gashay iyadu isma haysato sax bay isu aragtaa oo qoftii gudooyda xalaaleynaysa gabadha weyn waayahay xawo aan kugu soo noqonayaa dhagaystayaasha markan ku jira ama daawadayaasha khadka telefoonka halow وعليكم السلام ورحمة الله سبحانه دودينا ومغليني codka inaad kor u qaadaan yara jeclaa ururka abayd walaal waxaan ku doortay markaan soo bilaabo waxa weeye annaga hawshaan ku howlanahay waa hawl xasaasiya una baahan in meelo badan laga galo ee aan u baahnayn inaad meel kaliya abaadid marka abaydu waxay noqotay marinada ugu habboon waxaan u dooranay inay tahay qolo ishaysata oo walaalo isbiirsada ay yihiin meel walbana muxuu ahaaye xafiisyo kule oo deegaan kule isku urursadaan fariimahana si sahlan u gudbin kara u gaarsiin kara bulshada inteeda badan sababtu maxay tahay waxay ka kala yimaadaan hadda inta abaybayda aan u tagnaa muxuu xaafado kala duwan ee magaalada Boosaaso ka mid ah waxay kala degan yihiin tuulooyinka iyo gobolada muxuu ahaaye ay degan yihiin oo si sahlan ay fariimaha u gudbin laakiin hooyada iyo aabuhu
waxaasoo dhan waynu u jeednaa dhibaataduu leeyahana badankeed idinkaa xusay maanta gudniinka iyo aafada uu waddankeenna ku hayo waana arrin aad muhiim u ah inuu wixii bulshadeenna dhibaya gaar ahaan gabdhaha yaryarka ah oo tarankooda muxuu ahaaye xubnahooda taranka oo muhiimka ah sida muxuu ahaaye misqaala darratida ama cilmiga aan ku dhisnayn loo jarjarayo waa wax laga wada dhaqnado weeye marka walaalayaal annagoo anoo jeclinayno wax isla dhaafsanno maxaa arrintaasu idinla tahay maxaynuse ka qaban karna waa markii aanu marka taakulayn helo baahin ballaaran sii helo mawduucyo meel ugu soo helo xataa guryaha la tiro koobo kii busne ka dhigay kii iska daayay kii dhaqankii macnaha lugtaas wali lama gaarin baanu maraynaya laakiin waxaanu ku tashanay oo go'aaminay inaanu ama sunne ka dhigno ama iska badalin salaamu calaykum waraxmatullahi shacabka isla أدناك حاجات أنت هاي بس أديك عقل horta runta haddii laga hadlo way adag tahay in la ogaado laakiin annaga habka noo degsanay waxa weeye inaanu samayno waxa la dhaho dabagal meelaha ayna dhaheen ama ay muxuu ahaayey qolo walba ku wajahan tahay way qaybsanaysaa aan kuu sheegay degmo tuulooyin badan bay ka kala yimaadaan iyo xaafadaha qaybo ka mid ah ayaanu waxaan ku samaynaa waxa la dhaho dabagal ku samaynaa waa sii kormeeraa waxaanu hubinaa dadkan waxaanu weydiinaa inay balgaa soo gaareen fariimo ku saabsan gudniin haddayna dhahaan su'aalaha markaan weydiinana dhahaan haawana soo gaaray weli intaa kama harna ee meesha ay ka timi muxuu ahaaye ka soo burqatay fariintaas ayaanu quraan waa laga maqan yahay kanaan galaynaa صادق مركا ماليسين أنا وحنا نوكانيس وحنا نفقناها نوكانيس صادق بدسون قلتين إذا كنا نفقوا على الباب كسوحة وحلا كستو ما دول رمضان أنا فقرين إنه وجه ذا عنيه نكوا قديم بقى ما شقيس fartoo ka badan ma ii furmin waa carraay wiila calooshayda galay wiilka haddaa calooshayda oo galay waa dhibaatadii koow gutiinka iyo caadada iyo ninka waa soo mara waa kuu sheegay dhalowgii meel cunugii iga maraan waaye marka aniga nab inta ilmaha la marsiinaa meel soo maraan ma laha waa rafaaday saddex biro oo inta ku jira foolanaysa foosha maxaa kafkooba soo galay fooshaas waa iska xanuunsanaa laakiin kafkiyooba wuxuu u soo galay sidaas saasoo u soo galay naagihiisaanay leeyihiin ritiyaa lay saaray waxaa leegeeyey meel oo adi intaan iyo madiinoo kale ah oo adi afgooy ka sokayso baabuurta meel ay marto hawd ay mari karin baabuurta aa layga qaaday ilaa guuraawa meeshii oo baabuurta ay maraysay aa laygeey isbitaalka aa laygeey markaas beledweyne aa laygeey anigoo oo saan ah cunugii kugu soo taagan cunugii soo taagan oo meeluu mara aan la arkin anigana aan markaas waxba ogeyn sax miiskaa lay saaray saasaa la ii jeexay cunuga markuu isoo dhaaf nafta waa igu soo noqotaa inti ka bacdii takhtar leen tagaay saa waa lay dhaawacay haddii meel kale li aan ku dhalo tabtiyaan noqonaa
maanta waa dhannahay labaad baan idiin soo noqonnay reer sheerbi yaa ahey shir wada qaadanno wada fariisanno culimmadii baa nala jirta codsigii reer sheerbi annagoo fulinayna waxaan jecelahay mar labaad bal inaynu wada shirno oo arrimihii iyaga ahaa oo gudniinka gabdhaha ku saabsan aynu ka wada hadalno aymanayna meeshaan u soo kacnay أنا جالس كمان كسر نص كعية ده. سك هلا. كيس ها كيس كسر كسر مرة وشرت ولا ما هذا. وشرت أو يسكت حتى السنة أنا قد قاعد. أكمل معاك وترى ما قرر بقى. سيدا. عدان كسر. أنا جاي عدان. وين صديق. هذا كان إذن كاره فرين كان إذن كاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات النعيم سلام كدب سيدنا نسكو أوجين waa tii aynu markaynu doodnay ka bacdigeed oon ka doodnay gudniinkii gabdhaha aad nagaga dhigteen ama aad tiraahdeen waxay diinta islaamku qabto ayaanu ka qabnaa gudniinka ilaa haddana arrinta aad sheegaysaan waxaanu aaminsannahay inay tahay wax diiniyana ilaa culimmadu naga qanciso oo reer boosasa noo yimaadaan kama qanceen maalintii waxaanu idin nidhi waanu isku dayeynaa allah subxaanahu wa tacaalana markaanu noqonnay waa noo fududeeyey waxaana arrintii noqotay inaan mar labaad isu soo noqonno oo aynu arrintaa iyadaa ka wada hadalno culummadu islaamku waxa weeye waxay haystaan waa diinta islaamka waa hal kitaab bay leeyihiin hal qiblad bay leeyihiin hal nebi bay leeyihiin waxa weeye waxa culummadu laga yaaba inay masaa'il ama ay ku kala duwanaadaan ma ahan diintii iskhilaafsan ma aha waa masaa'ilkaasaa fahamka nin walba ilaahay ka geliyey culummada hadda joogta maana kuwii ka horreeyay xataa saasay ahayd imaam shaafici imaam axmed imaam fulaan asxaabtii lafteedu nebiga la joogo yaa waxay odhanayaan nebigu saasuu u jeedayey saasuu u jeeday waxa weeye waa fahamkaan ilaahay siiyey horta si aan loo fahmo waxa weeye taa horta waa jeclaan lahaa maxaa yeelay idinka baadda magaalada degan tihiin markaad tuulo ka hadlaysaan ama meel la aadahay ninna wuxuu leeyahay war dhabbahana inoo dhow ninna wuxuu leeyahay maya kanaa dhow marka labadan ninba waa khaldan yihiin miyaa la leeyahay labada ninba waxay sheegaan inay rabaanna soo magaaladii maaha dhabbihii loo mari lahaa taa horta waa taasaan ka oran lahaa inaan kusii dheeraado ma rabo mawduucan marka haddaan usoo degdego laga hadlahayo gudniinka ay diinta islaamka sheegayso kan ragga isagu dood kama taagna in yani culammadoo dhan meel kasta ha joogtee waa isku wada waafaqsan yihiin marka waxaa kuu soo haray haweenkii waa sunnah leh sunnada waxaa la yidhaahdaa wixii haddaad samaysana ajar aad ka helayso oo sawaab leh hadduu qofku iska daayana uusan dembi lahayn maxaa kuu soo haray marka innaga dhaqan soomaali ahaan ma naqaan ama dalka islaamka ma yaqaanaan in la iska daayo gabadhi faraha laga qaado ma yaqaano bal innaguba haatan diinta aynu muslim nahay oo islaan oo isku diin aynu haysano diinteenni innaga ilaahay noo soo dejiyey munasilka ahayd quwiga ahayd haysana intee la goynayaa meesha sancadakan intee la goynayaa su-aashaasaa ku weydiiyey intee culimadaan weydiinayaa intee la goynayaa mise waa la daynayaa waa bismillahi raxmaan raxiim waa hadalkaygii bay ku jirtay axaadiista ku soo aroortay ama culummadu meelahay uga hadlaayaan waxay leeyihiin in yar laga dhiijiyo in yar laga dhiijiyo bay leeyihiin ma arkaysa qaar waxay leeyihiin irbadoo kale in la dhiijiyo la taabto sheekh nuur halkan dadaan kugu walaal shirku haddee waynu wada joognay laakiin markaan aniga dareen ahaan ka hadlo weli dadku sidaynu maalintii hore ku ogeyn
ama si kasii adag bay u sii adadkaayeen xaqiiqda dhabta shiiqyada ay marka hore codsadeen markaan keennana waxay u ekeyd inay ayaga qudhooda cudurdaar u samaynayeen oo inay iyaga weerar ku hayeen waayo waxayan rabin in laga faragashado iyadoo dhaqanka xun ay ku taagan yihiin saan u arkaya aniga sidaas ayay ahayd markii horetoona arrinta ka wada hadlaynana nooma ay sheegin laakiin waxa way culimmadii hadda iyagu siday diintu qabtay way ka hadleen bareer ahaan inkastoo qudhoodu culimmadu ayan sii caddayn xadiisyada qaarkooda la cuskanaya inay qaybtooda ay yihiin daciif oo ayan lahayn daliil cad oo adkaynaysa laakiin uu ahaa rasuulkeena subhana salawaatullaahi calayhi wasallam macallin dhibaatooyinka mar walba ummaddiisa uga diga oo siduu u yarayn karo ku dadaala xadiiskaas wadaadada qaarkood sidaas ee mararka qaarkood Soomaalidu daayisneeno Soomaalidu wax mahmaah ku tiraahaa haan gumbaa laga tulaa shayga haanta caana lagu shumanay haduusan cag lahayn caana ma cisheen magaalada habraheedii annaga hadda maxaad u hadlay annaguna gabdhay wax xaquuqayna maxaa sabab haddaad idinku tihiin ka soo horjeedaan hawlo badan oo wadanka in loo qabto u baahan baa jira kintirka gabdhaha inta aad u doodaysaan oo noo shirinaysaan hawlaha ma noo shirisaan oo wax nagala qabataan gabdhaha kan daawada ismarayo dalka ka dhacay maad wax ka qabataan oo ina ka celisaan daawooyinka xooluhu bacaa kan ay ku dhinteen oo ku marooro xool lagu cayroobay maad ina ka celisaan oo ina ka joojisaan maanta waxaan nagu daalinaysaaniin waxaan nagu daalinaysaan gabdhaha geedkoodii oo dadka shaqaysto haddaba lacag ku qaado koronto soo leedin ma gelin ruuxasta seef ayeeyada jirtay soo jenso seefta ayeeyaday baa lahayd oo hooyaday baa lahayd waana haystaa gabdhahana magaalada anaa waxaya may fahantay guri baana ii furan mana dayn waxbaan kuu sheegay idinkuna dad iga soo horjeeda baan u arkaa laakiin waxa kale oo aan idinka rabaa si inaad ii sheegtaan macnaha aan dulmi iigu imanaan yeelo كسرنا أنت يا رسمة كأم سمة هذا وحبة دينين لا واحد هذا وكلا درين وكلا شر بدينين أنت يا رطابة أنت يا بس كده هتقولوا القيامة يا دبي قليل واحد كلا علماء أنت أوصي كبا يا إنك سيجوا علميين حديث كاس قبل الديجة الله سبحانه وتعالى وحو حديث كاس آد وحو أركيد دباتك وين وشرت الرسول كان سبحانه معلن كاني دما تمرك وحو سو دبته ويرى مركا ولا شيء لكن علماء مركا واحد هذا حديث كاس دليل صحيحة ملها وأنا ضعيف بالها مرة قاركود حديث القبل إسكجت تقول ترى بتشرت سمع قل هدي له روا سني أما سمعي أما هسمعين لكن سوي أو سمعي بالوير سمع كان هدي مدك الواحد ترى أنت در عافماتك هدو عدي إني دبتاي وحوي دين الإسلام كدب ما أبورن ولا جتجي سمع قل ولا جتجي أدو دبت ما عدي سنة جرتو سو ما عدي ومحادو سمعين هي واي وقوقنت استرتجي وأدو سو إلهي يقوم تلقى كاله gabar qooqda oo gurigi ka baxdo soo qabta la yiraaho maara uma hayno geed kan haduu ka badan yahay waa loo joogaysaa kaale ما ترى والله gabar bay tiri markii bahalka loo dhaafo waa qooqanto ragay ciirsanaysa taa maxay diintu ka tiri sultaan day ka hadlay maadan maqlin gabadha akhlaaq in la baro diin la baro markay gaadhaan nin fiican lagu daro day iimaan leedahay Allah ka cabsi waa ka reebay gabadha saxaabta yaa ka reebay sheekhu dareenka yaa sameeyay ilaah baa sameeyay miyaan inagu dareenkii baabiin karraa bal hadda ka warrad dareenka Allah ma sameeyo Allah ka cabsi adiga miyaa dareenka marka hor istaagay abay macaan haday xishood leedahay haday xishood leedahay oo diin leedahay akhlaaq leedahay reer wanaagsan ka dhalatay waxa way waa dhowrsanaanaysa mujtamac ay ku noosha mujtamac nadiif haduu yahay marna xaraan raadsanaysa xaq ilaahay bay ka cabsan xaq sharafkiga reerka ilaalin waxa way waa ilaahay waxa kan shaydaan marka waa ka ilaalin kartaa ayagoo ka fiiran xaq dhaqaale iyo xaq ayaga la karaamaynayo dadka muxuu ahaa ixtiraam alla gudaydii baa tibuu istaaga alla gudaydii baa tira maama tanutiiku guday waaye wixii oo dhan baa ka maqan ya sida oo ayaga marka waxay dareemayaan dad daaqada laga tuuro wax u bedela haddayn helinna aniga way ila adag tahay sidaan ka arkayay ama ayba cadeeyeen inay duulka laga bedeli karo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxa ay sameynayaan
dhaqaalahay ayaga soo galayay midda kale qoftu wax gudday iyo qoftu wax dhalisa Soomaaliya aad bay u ixtiraamaan oo waxay u haystaan in qof aad iyo aad bulshada meel adag kaga jira marka haddaad shaqadii ka fariisiso xagga dhaqaalihi ka curyaamayo xagga sumcadda ka curyaamayo dhammaan inta ayaga soo xusay waxay dhaheen annagu haddaanu gudooy wax naga bedela dhaqankayagii ma haysan waxaanu ku bedelno fursadana ma haysan saa darteed qolooyinkiina hawlaha wada waa inaan la dagaalana waanu ka soo horjeednaa arrintaa mana dhacayso in si sahlan naloo ka gooyo arrintaa kaad macnaha gudniinka ma wiilkaada marka hore kala hadashay mase wiilka iyo gabadha oo maxaa labadooda isla jiro haye yaad marka u sheegtay labadooda wada joogo haye horta waxaan maqlay ilmihii waa la gudaa koow ما لا جودها بس لا بدوها وإمد وإذين دعيناها رهاية وإذين دعيناها دافع ما يقول تلديدن أي جانا بس وإصلاحات لين وإصلاحات لين سجع جارها نكتس ولا هذا لا بدوها أنا جوا الجري مركان الجري إذا وحي تري هدان للصنين عن حير كان هدان للصنين يعني عن عادة اللي بكن عن كتر هو يسوق لب معها ويلكي وحور سيدي هانيسا بس والله هاللي أقل كأن دمنا أنا كعبسدي وحائر رواية صنين يعني كل التجايان عن كبقى يعني هو حيبقى يستقبل هدية يسوي إنك كده يسوي عبيد وابل الكوية يعني ما لا يسوم ده بعدين كبدي والله مركا يسن نقول كبدي وسيبي له هو أبو عادة يبقى عجيز ونبي كلام waxaan maanta jecelahay inaan ku martigelino shirkan ama ku soo dhaweyno iyadoo ahayd waawo yahay ururka shabakada u heelanayaasha danaha haweenka oo ah urur aanu in badan iskala shaqeynayna hawshan kaalin firfircoonna ka qaadan jiray haddana aanu wada shaqeyno oo sidii hawsha u wada wadno maanta inay fursadan xaawo muxuu ahaa cali jaamac aanu muxuu ahaa ay noqotay fursadeedii inaan ku soo dhaweyno xaawo cali jaamac waxa leeyahay ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لا هيجا كسوق قيب قلي شركان يحفلدن دمان تود وحنوسو جدينا يا سلام tanna waxaan filaynaa maanta oo socota in ay noqoto arrin gaarta mujtamaceena oo dhan gaar ahaan haweenka oo dhibaatadooda xagga gudniinka ah wax lagaga qaban doono dumarku waxay leeyihiin dhibtaan dacwadeeda nahay waxay dulucdeedu taal deegaamada reer miyiga dugaashada caado hore duntiisu masayr ka timi gudniin yahay dawgalkuna midaan diintu oggolayn daliil lagu dhiirradayo daliyo qiila cidi u hayn wax danii nolosha ugu jirin dawana laga raadinayn dhibtiisuna darantahoo dubaaqiya dhaawac iyo diliin loo dhiman kariyo xanuun lala diiqo iyo diifaan weligeed ba'ayn dirkaba ku qabaan habluhu waxay doonayaan dagaal loo wada dhan yahay dagaal loo wada dhan yahay si loo dabar jaro dhibtaan inaan qofna doorkii gabin wadaadada diinta iyo dikriga eebbiya sharciga bulshada u daliiliyaa inay ku daraan wacdiga ayay naga doonayaan abwaanada deelayda iyo dabuubta murtida tirshaa inay ku daraan tixaha ayay naga doonayaan
aqoon-yahankuna darsiga inuu ku daray rabaan si ay da'yartu u bartaan dhammaan isku wada daro yah dhibtay ka yihiin dacwada in laga daayay rabaan ragguna dalle kuma qabaan yah ragguna dalle kuma qabaan doodaasu hadday sax tahay guddoon ma ku daysannaa dalkeennaba sheekooyinkaadan ku saabsan dhibaatada gudniinka dad kale macnaha ma u baahisaa sidiyaa meelo laisugu keenaa goob gabdhaha xagee hataa magaaladan tuulooyinka beledweyne hataa inta nafteeda inta ka sheeka hal markaa naftiisa gabdhihii waa lasu keenaa 4 gabdhood 5 gabdhood aa laisu keenaa kabacdi aniga waa la hadlaa adinka dadkoo dhan ay dheheen ma ogtahay waana dhegaysta xag diini iyo xag dadeedba waxna waa iga yeeleen waxna igama yeelin laakiin dadka intaan tagay baadiyaan tagay boqdiyaan tagay beledweynaan tagay intaan imid badi waa la iga yeelay anaaba soo maray ay ku leeyihiin dhibkaas waayahay naag walba xilay gabadhayda ma la gudaay dadka aad u sheegayda sidee dadka u sheegaysid waa dadkee waa noocooda dadka naagta gabadheeda gudanayso tan gudayso labadaasaan u sheegaa aniga tan habarta ahoo gudayso iyo tan wax gudanayso labadaas leen kala hadla eemkaan annaga koogu ahaanteennana aan shaqadan ku qabanno waxaa waaye inaan horumarka dumarka aan ka shaqayno primary goalkeena kan ku xigana waxaa waaye inaan xaquuqda gabadha dumarka Soomaaliyeed inaan ka hadalno xaquuqdana markaan ka hadlayno waxaa soo hoos imaanaysa arrinta la yiraaho gudniinka gabadha dib loo geysanayo oo xaquuqdeeda bani'aadanimo inay wax ka qabato arrintaas annagana maadaama aan dawlad haysan waxna taakulayna arrintaas ulaasan laakiin dadkeena waxaa moodaa markaas inay diin ahaan u samaynayaan haddana dhaqankii hore ka soo gelinayaan macnaha waxaa moodaaba dhaqankii inuu ku xoog badan yahay marmar macnaha dhinac waxa imaanaysaanba kuu sheega arrinta waxaa keenayso gabadha Soomaaliyeed geed arrintan gudniinka ah oo fircooniga ah oo gogoosmada ah ilaa hadda way aaminsan yihiin inuu wax xun yahay markay diinta barteen waa ogaada inay wax xun yihiin laakiin maadaama dhaqankan loo dhiibay dad badan oo dumar ah oo aqoonti lahayn domainkan oo gudniinka dumaraab iskal ragad waxay ku leeyihiin habartaa suubis annaga maba suubiyin maxaa keen arrinta waxa waa la qaada process oo soo mara processka hadda dumarkii gacanta ugu jira micnihii ayagoon fahamsanayn waxaan nahay dadka yani koob waa taageersan laakiin banaanka idinka ها لكن مرينا محمود دا wadaadkayna oo diinta saas u yaqaan in oo macna asagoo ii sheegi kara inaan sunnihii loo baahnayn ama muxuu sunnihii iigu rakibaya waxa arinta ana qosaas ana dumar ama iska celiyo waxa dumar difaactami kara arinta iska cikale bidiini bi aqooneeda lahayn hadda kasto aqoonti aan lama hano oo ku difaactami karno diintana aan barana aan isaga difaac wadamada Afrika ugu fiican aan burburkii iyo arrimaha iyo macnaha waxay dagaalka horta mujtamac Soomaaliyeed meel kasto joogo uu saameeyay laakiin markuu saameeska yimaado dagaal markuu yimaado particular wuxuu aad u sii taabtaa waa dumarka iyo dhallaanka yaryarka ah
iyo waayeelada marka qofka dagaalkan maadaama uu yahay dagaal ku salaysan qabiil waxay noqotay mar allaala markii duulimaad dhaco badi dumarka lama ataago marka rag waa cararaa marka baardankii oo guriga ogaantiisa ilmihii ogaantooda waayeelka qofka ah laga carara dumarkay ku soo furtay markii aan soo gadoonno dagaalka ka soo noqonno oo kastoo yar fahamka noo soo noqdo weli dagaalka ma dhammaanin waxaa dhacday shaqooyinka inay furnaan waay unemploymentaa dhacday dowladdii istaaggeeda waa burbur markuu dowladdii istaaggeeda burbur arrinta waxay ku soo shubatay inay gabadha Soomaaliyeed orado ay noqoto qofka rootiga soo dhicinayo hadday shaah gadgadayso hadday jaad gadayso hadday xoolaha nool ay ka bic mushtarayso hadday caanihi keenayso hadday qudaarta gadayso intaas oo iyo hadday suuq intay galayso dhar beec mushtareynayso marka waxay noqotaba xataa inay raggeenne effective work oo inuu ku noqdo inay mashaqaystayaal noqdaan hooyadii noqoto inay rootiga dhiciso marka kastoo yar xasiloon yarina la helo ilmihii iskool la geynaan ayada inay noqoto marka ayada waxay noqoto inay rootigii ragga soo dhicin jiray ay soo dhiciso inay ay booskii dhalmada ay weli ku jirtay qof dhala ay ku taagan tahay haddana inay noqoto inay mujtamac sidiis kale ayadaba u orado ay ragga ay ku leeyihiin ama jaadaan cunaa ama ani maba shaqayn kara adaaba lafiis u naxaysa qof raggood ninkaaga waa jecesha waana qiimaynaysaa marka waxay noqoto ayada marka inay noqoto qof oo wax kasta suubinayso dhalmadii ku jirto haddii ilmihii kacaan ay ogaan noqoto ayada ay ogaato haddii guri quud loo soo dhicinaan ay soo noqoto waxaan dhaqan aan hore u lahaan jirnay marka taas horta culayskeeda ay leedahay laakiin dhinac kale haddaa ka fiiriso faa'iido waa leedahay faa'iidada waxay keentay inay gabadha dumarka Soomaaliyeed in lala qaybsado aaraada iyo guriga wax ka dhacayo in lala qaybsado oo informationka ay wax ka dhahdo marka qof quudka markuu keenayo power yar uu yeelana laakiin ana ma dhihi karo ilaa meesho powerka gaarsiisan yahay ma sheegi karo laakiin hadda waxaad arkaysaa inay wax ka qabadka wax ka dhaha qoyska arrimihiisa inay xoog ku soo yeelanayso tan gudaha markaan ka hadalno markaan dibadda ka hadalnana ay dadka diasporada ay aadeen waxa ku dhacday inay badi gabdhaha rag dumarka u baxeen gabdhaha qoyska qof gabar u baxday inuu ka faa'iido badan yahay kan qoyska ragga wiilka ragga markuu baxo oo nan guursanin cidi waa ka soo fikara laakiin markuu baxo oo reer yeesho waa iloob cidi gabadha hadday reer leedahay iyo haddaynan lahaynba ciddii ay uga tagto xamar ma ilowda weli ayadaa gacanta ku hayso marka waxaa hataa taas hataa ku muujinayso marka go'aan cidda laga gaaraa lagu leeyahay gabadha lala socodsiiyey maqneed horta waxaa u malaysaa inay uplifting ay ku suubisay positionkeeda laakiin ani ma sheegi kara hadday gabadha Soomaali faa'iidadaasayto intay ka faa'iidaysato ay positionkaas ay xanan karayso ma sheegin marka naftirkeeda waxay u baahan tahay istiraatiiji inay u develop garaysato say ku hanan lahayd booska السلام عليكم ugu wanaagsan oo muxuu ahaayey dadku isku dhexgeli karo oo waxa xun oo dhan lagaga kaaftoomi karo waxa weeye isboortigu wuxuu bulshada ka badbaadiyaa dhibaatooyin badan waxaan leenahay waxaa cayaari kara qof iyo sidaa darteed gabdhaheenna ma ay fiyooba Soomaaliyeed marka bulshada halkan maanta isugu timi oo dhalinyarada u badan waxaan ka codsanaynaa inay arrinta foosha xun kala hadlaan eheladooda waalidiintooda si looga gaaro go'aan loo wada dhan yahay oo ah inaan gabdhaha xubnahooda taranka la curyaamin kaas oo dhib horey noo ku soo hayay dhaqanna ah welina jira